بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 2 September 2024 warbaahinta sportska koonfur galbeed Soomaaliya shir ay ku yeesheen magaalada Baydhabo kaas oo socday 3 maalmood ee la soo dhaafay waxay ku doorteen guddi iyo gudoomiye waxayna soo saareen warmurtiyeedkan soo socda ujeedo go'aan ka gaaris annagoo ah dhammaan warbaahinta sportska koonfur galbeed Soomaaliya markii aan la kulannay caqabado isugu jira isoristaag iyo ku tagrifal awoodeed oo ka dhana shaqadii mutadawacnimada ahayd ee aan u haynay bahda sportska koonfur galbeed Soomaaliya taas oo ahayd qurxinta iyo sare u qaadida horumarka sportska koonfur galbeed Soomaaliya kadib markii aan aragnay wada shaqayn la'aanta madaxda iyo maamulada qaar kamid ah kooxaha ka dhisan koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo kadib markii aan aragnay in ixtiraam iyo qadarin loo haynin warbaahinta sportska loogana baxay ballamadii iyo heshiisyadii wada shaqayneed ee kala dhaxeeyay xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya waxaan go'aan ku gaarnay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 2 September 2024 in aan joojinay gabi ahaanba shaqadii aan ka haynay garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo bahda warbaahinta sportska koonfur galbeed Soomaaliya waxay wanaag iyo ixtiraam u hayaan dhammaan ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxaha ka dhisan koonfur galbeed Soomaaliya ugu dambeyn warbaahinta sportska koonfur galbeed Soomaaliya waxay halkan ka cadeynayaan inaysan hoostegayn cidna shaqadoodana ay u madax banaan yihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh